cabitaan waxaa yaala caano muus, caano chocolate, caano timir, cocktail, qara, babaay, cambe, liin. casho fudud waxaa taala shawarma, fish burger, chicken burger. casho fuula waxaa taala baasto, bariis, kalluun, chicken steak, daafi, suqaar. أنا معي قراها قرا برف شكر لهاي يجي ران قبضين أنا عبي عن موس أنا عن تمريك caano timir, caano muus, qara. magacaygu waa Ibraahim Daab. waxaan ku dhashay waddanka Australia. waxaan hadda ka shaqeeyaa kulan oo waan ku faraxsanahay 100%. waan ku ganacsanahay. gaalkacyo inaan anoo joogay inaan ku sii shaqaysto waxaan u arkaa wax fiican. inta ugu badan dadka waxay ku badan yihiin casarkii soo toos oo soo shaati cadee maalin dheeri waxaan ku xisaabtamaa habeenkii anoo wax jeebkayga ku jira inaan ku seexdo. nolosha qurbaha nolosha xaggaan waxay ku kala duwan yihiin. xaggaa waddan gaalaa weeye, waddankaagi ma aha, dadkaagi ma joogaan. alone iyo depression iyo stress baa qof ku dhacaya markuu xaggaa jooga. halkan laakiinse free baa tahay, dadkaagii baa jooga, ehelkaagii baa jooga, familkaagii baa jooga. marna baahanaan maysid. meeshaan meel wanaagsan weeye, waddankayga wey, waa jecelahay. waan ku qanacsanahay. dhallinyarada waxaan ku dhehi lahaa meesha ka kaca oo shaqaysta, adeer macaana dhididkaaga intaa shaxaad iyo wax kale aan la aqoon raadsan lahayn. dhallinyarada facayga xaggaa ma shaqeeyaan oo waxay ku jiraan filin iyo waxaa ku jira gaangisnimo iyo waxaan la aqoon bay ka daba ordayaan. dhallinyarada xaggaana markaa u imidna waxaa weeye dad wada fadhiyo oo far inay qaadaan rabin. guddigood waxaa ku wada ku filan dibad iyo xaggaa markaa dibadda aada waa shaqaysanayaa iyo dibadda maana u dhalan, waddankan baa u dhashay. waddankan waa ciideyda, dadkayga, ehelkayga, tolkayga meeshay wada ku nool yihiin. xeerna inaa gaarsiiyo oo aan wax soo saar aniga shaqsiyan aniga gaar ah inaan ku sameeyo waa hamigayga. haddii ilaahay idmo waxaan kaloo leeyahay dhallinyarada inay meesha ka kacaan waa muhiim, because waddan wuxuu ku noqdaa waa bulshadiis. bulshadiisa hadday yihiin dad dowlad ba sugaya meelna ma aadayaan. laakiinse ayaga hadday isbilaabeen inay ismaamulaan oo wax soo saar ayaga iska keenaan, markaasaa insha allah wax walba hagaagayaan. tani waxay dhiirigelinaysaa oo ay garab siinaysaa dhallinyarada qurbaha ku sugan in ay fursad u helaan, ay arkaan inay waddankoodii ka shaqaysan karaan. dhallinyarada gudahana waxaan leeyahay waxaa bannaan fursadeed kusoo dhaweyn lahaydeen walaalihiin intii 20 sano gudahaad ku dhibtooteen dagaalada iyo dhibta ay socotay, iyaguna qurbaha ku dhibtoonayay oo la kulmayay cunsuriyad iyo dalkooda inaysan lahayn iyo dhibaatooyin kale oo xagga bini'aadantinimada iyo xagga maskaxiyan intaba. marka mar walba waxaan rajaynayaa bahda warbaahintana in ay aragti gaar ay u yeelato dhacdooyinka quruxda badan ee hal abuur kale ee horumar kale ee bulshada dhexdeeda ku jira ee kaliya aan maaragtay focuska la saarin tabinta wararka iyo arrimaha la xiriira dhiilooyinka magaranaysaa xanafta leh. waan kaga mahadcelinayaa bahdina halmaal dadaalkaad ugu jirtaan inaad maaragtay soo bandhigtaan bulshada dhexdeeda waxyaabaha ku qarsoon. dhallinyarada waxaan leeyahay shaqadu ceeb maaha, shaqadu sharaf weeye. haddaysan dhallinyaradu iyagu shaqaysan oo san noloshooda dhacsan waxba noqon mayso. marka hadalkayga gooda dhallinyarada wax kula talin lahaa qurbaha in haddaad ku fikiraysaan, Ibraahim baa tusaale idin waa role model weeye. Ibraahim isagaa tusaale idinku filan inaad waddankiina ka shaqaysan kartaan. shaqa inay taallo wuxuu tusaale idinku yahay. wuxuu tusaale idinku yahay qurba inuusan wax sharaf lahayn. qofku markuu tago baa waxa ku dhacaya stress iyo dhib iyo cidlo iyo rafaad iyo nolol adag iyo wax walba inuu ka fakarayo, inuu ka fakaro kiradii, inuu ka fakaro korontadii, inuu wax walba ka fakaro. waxaan maanta ka fakareen xorriyad waa haysatid meesha rabtay xanas. fariintaas baan farayaa. Ibraahim wuxuu noo noqon doonaa role model insha Allah. Ibraahim adigana xaflad weyn baa kugu casuumi doonaa, abaalmarin oo kugu siin doonaa shaqada haysid iyo tusaalaha u tahay dhallinyarada.